بروفيسور صالح سؤال كويدين وحويان سيدي أفسر لهي ودن النمو walaalkayo wadaninimadu mid da'deena maanta loo fasirayo maaha waa mid ninka wadani ogsoon yahay oo aanu mooganayn waa mid aan ninka aan wadaniga ahayn loo sheegaynin wadaninimadu iyo u dhalashadeeduba waxa weeye qofka ضميركيسا iyo muhdiisa iyo lubigiisa ay aad uga buuxdo uguna weyn tahay jacaylka dalkiisa wadanigu maaha in la ogaado oo loogu abaalgudo maaha in loo dabaaldego oo loo mashxarado maaha in had iyo goraale ku soo beegmo mar dadkiisa iyo dalkiisu ay libin taagan yihiin ee maray colaadeed tahay oo saban adag ay tahay oo u dagaalamaya dalkiisa iyo mar dalkiisu barwaaqo yahay oo uu sii dhidbayo barwaaqada iyo madax bannaanida dalkiisa wadanigu gu iyo jiilaalba oo midaan midab doorsoomin oo dhaqan doorsoomin oo aan food habaabin oo aanay ka amban jacaylka uu dalkiisa u haya ma noqon kartid wadani in calanka Soomaaliyeed ama calanka waddankaaga ku doonaba ha ahaadee lagugu laalaabo lagugu aaso oo lagu mashxarado oo lagu ammaano calanka oo aan ciidgal ahayn oo ciidda lagala dagaalamo inuu ku dhaco iyo mariha qofka meydka lagu laalaabaa dadka qofka sii dhaweeya way ka soo noqonayaan way ka hadhayaan qofka meydka xoolaha uu qofkaasi lahaa way ka soo noqonayaan laakiin waxa qofka raacaya ilaahay marka uu hortagayo la soconaya ilaahay marka uu hortagayo la soconaya waxa weeye cibaadadii uu iska geystay markuu uu noolaa iyo muctaqadaadkii ikhlaaqeed uu lahaa iyo camalkii uu geystay oo ikhtiyaarka madaxa bannaan lahaa haddii wadaninimadu intuu iska ku noolaa oo ikhtiyaarka madaxa bannaan lahaa haddii wadaninimadu u dagaalankeeda kumaansashadeeda u halgankeeda hamigeeda u halgankeeda u ducaynteeda kulay ku tahay ay kugu dheerayd camalku raacaya oo ciidda iyo ilaahayba ay ku iyadoo wuxuu yidhi ninkii jiray dihiin bay ahaanaysa iyadoo oo kooban wuxuu yidhi ninkii jiray haddii inaan weligay waaro lay qori lahaa mar allaale marka dalkayga xusuusto ayaan waaritaanka dib uga soo noqon lahaa intaasaan caawa su-aasha